السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن إذن سلام دمان أصحابتي ذا من البادوني ذكجوكتان عيد الأضحى أما عيد عرفه وعيد لبعض أدتك مسلمين تؤدى بالدقان إيغو عبادوين أيمن ألوكو عابدايا وحيكو بيغان تهاي توانك بشد الحج كالندرك إسلامك أما تاريخ الهجرية وأنا مركي لغا صوتاقو تاقنيدا عرفة ماشا أي استاغان حجيدا سي أي أكدتان مناسك تحجك كو أمهم عيدان أيا أحسدو كله حسوستا قصدي نبي إبراهيم عليه السلام مركي doonay inuu wiilkiisa Ismaaciil u horo ama gowraco isagoo raacaya amarkii Alle ee ahaa inuu gowraco wiilkiisa orodka ah waana laga daayay oo lagu furtay weyn saas daraadeed muslimiinta waxay horaan ama gowracaan qofkiiba neef xoolo ah ari lo ama geel iyagoo hilibkaas loo qaybinayo qaraabada dadka masaakiinta ah iyo cidahooda halkaas ayuu ka yimid magaca adxa ama udxiya oo la macno ah gowrac ama hurid maadaama la huraayo xoolo la gowracayo waxyaabaha la sameeyo ciidul adxa waxaa ka mid ah salaada ciida oo la tugto wax qalitaan waxa la qalaa neef xoolo ah hilibka ayaa laba loo kala qaybiyaa waxaa la siiyaa asxaabta iyo qaraabada hilibka kalena waxaa la siiyaa masaakiinta iyo dadka baahan waxayna bilaabataa ciida 10 dilxij waxayna ku eg tahay 13 dilxij sharci ahaan ciida ayaa ah 4 maalin oo loo yaqaan ayaam tashriiq maalmihii hilbaysiga iyadoo in la soomo ay xaraan tahay maalmahaas ciida ayaa bilaabanaysa habeenka ay soo galayso 10 bishii dilxij ilaa 13keeda iyadoo bilaabanaysa takbiirta iyo adkaarta la akhriyo ciidana waa la wadayaa ilaa maalmuhu ciida ay dhamaadaan sidoo kale takbiirta ayaa sunno la adkeeyaa habeenka ay ciidi soo galayso ayaa la bilaabayaa takbiirta iyo adkaarta la akhriyo ciida waana la wadayaa ilaa maalmaha ciid ay dhamaadaan qaabka takbiirta ayaa ah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la kale ee dheer ee la akhriyo ayaa ah qaabab dadka ay iska sameystaan oo nabiga sallallahu alayhi wasallam laga warinin salaada ciida waxa sharci ah in la meel qura lagu wada ciido salaadan ayaa ka kooban 2 rakaco aan lahayn adin iyo aqin midna waqtiga salaada ayaa galaysa markay qoraxda soo baxdo ilaa ay ka iilato bartamaha cirka waxa sunna ah in kor loo qaado lana akhriyo suurada qaaf iyo qamar iyo qaashiya iyo sabixisma markii laga soo baxo waxa la soo marayaa wada khilaafsan tii aad ku aaday musallaha si ay tilaawadaada u badato ajirna looga helo sidoo kale gowraca ayaa sunna la adkeeyay ah in la gowraco wixii qof kasta u fudud oo xoolo sida ariga geelka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu gacmihiisa ku gowracay 2 wan oo isagoo bisinka u qabtay Allahu akbar tayiri ummadda muslimiinta ah meel walba ay dunida joogaan waxaan idin leeyahay kullu caam wa antum bi alf khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh